السلام عليكم. halkani waa Grand Online Academy. magacaygu waa Dr. Maxamuud, waa macallinkii pharmacology-ga ama dhaktarka bixiya maadada barashada daawooyinka. Maanta waxaanu ka hadli doonaa drugs for acne, dawooyinka lagu daaweeyo finanka wejiga ka soo baxa ee sidoo kale Soomaali loo yaqaano findoobka ama dawooyinka yareeya ee loo isticmaalo ayaynu ka hadli doonaa insha Allah. intaan casharkeena bilaabin waxaan idin wargelinayaa inaanu bilaabayno fasalo cusub oo ah barashada daawooyinka dhammaan pharmacology-ga oo dhan qaab online ah adigoo gurigaaga jooga. haddii aad xiiseynayso waxaad la soo xiriiri doontaa nambarada hoose insha Allah. drugs for acne-gu Soomaali waxaa loo yaqaanaa findoob. waa finan inta badan wejiga ka soo baxa, gaar ahaan dadka wejigooga saliiddu ay ku fara badan tahay. waa maxay marka acne? waa maxay acne-gu? waxa weeye skin disorder, waa dhibaato maqaarka ama skinka ku dhacda, taasoo lagu arko markaa with pimples, finan yaryar oo casaan ah, ama comedones, waa finan waaweyn, iyo pustules, finan ay dheecaan la socdo oo caddaan afkoogu yahay, ayaabaa la yidhaahdaa markaa acne. Okay, dawooyinka lagu daaweeyo. horta intaanan ka hadal dawooyinka acne-gan maxaa keenaya? acne waxaa keenaya saliidda faraha badan leh ee jidhku soo saarayo ayaabaa waxa ay xidhaysaa booriskii ama daldalooladii ay timaha jidhku ay kasoo baxayeen, kadibna obstructionka ama xidhitaanka daldaloolkii uu xidhmay ayaa waxay keenaysaa in hadhow bakteeriyooyinkan skinka ku nool qaar ka mid ah inay markaa inflammation ama caabuq meesha ku sameeyaan, kadibna uu markaa fin weyn oo ama dheecaan leh ama pustular ah ama fin casaan ah uu soo baxo. marka taasaa loo yaqaanaa waxa weeye acne. waxa keena acne-ga gaar ahaan wuxuu ku badan yahay dadka waxa weeyaan wejigoogu ay saliiddu ku fara badan tahay. waxa kale oo ka soo baxaa waxa weeyaan xaaladaha qaarkood sida hooyada uurka leh oo kale, dhalinyartu marka ay qaangaadhka yihiin oo saliidan faraha badan leh waxaa keenaya androgens ama dheecaanadan jidhku soo deynayo ayaabaa saliidda jidhka badinaya wejiga, kadibna waxaa dhacaya obstruction, markaasuu finku soo baxaya. waxaa kaloo keena oo very important aynu halkan in baraarujino u baahannahay, daawooyinkan markaa la isku caddeeyo maqaarka qaarkood baa markaa acne-ga keena ama finankan soo saara. dawooyinka lagu daweynayo waxaa ka mid ah dawooyinka la yidhaahdo retinoids. retinoidsku waa group daawooyina, marka waxay sameeyaan caabuqana way yareynayaan, sidoo kale waxa weeyaan waxa markaa ka mid ah tritonin, isotretinoin iyo adapalene ayaa ka mid ah. waxaa kala yareynayaan markaa secretionkan lasoo deynayo sebumta amaba saliidan. tritonin iyo isotretinoin iyo adapalene baa ka mid ah dawooyinkan. side effect maxay leeyihiin? inta faraha badan waxay keenaan dryness, qallayl fara badan. marka qofku habeenkii baa la isticmaalaa inuu markaa wejigii very dry noqdo, irritation oo ah markaa wejigii oo qofka cuncun iyo xanuun ku yimaado, iyo skin peeling, wejigoo qolof ay ka soo kacdo ayaabay keeni karaan. waxaa kaloo ka mid ah daawooyinkan marka acne-ga lagu daaweeyo dawada loo yaqaano benzoyl peroxide. benzoyl peroxide markaa wasoo kale iyadoo waxay u shaqeysaa as an antimicrobial, marka acne-ga ayaa loo isticmaalaa. waxaa kaloo acne-ga loo isticmaalaa salicylic acid, dawada la yidhaahdo. waxaa kaloo loo isticmaali karaa azelaic acid, oo iyadu sidoo kale waxay leedahay antibacterial activity iyo anti-inflammatory activity, labadaba way leedahay. caabuqiina way yareynaysaa, jeermiskii ama bacteriyadii markaa keenaysa inflammationka ee ka faa'iideysanaysay markaa follicleskan xidhmay ama daldalooladan xidhmay ee ay sebumka ama saliidda jidhku ku ururayso ayaabay la dagaalamayaan. marka antibioticska qaarkoodna waa la isticmaalaa iyagoo topical oo maqaarka la iyo iyagoo oralaba, gaar ahaan markuu severe acne uu jiro ee inta badan weliba pustular uu yahay ee uu dheecaan uu sameynayo. marka dawooyinkan si detail ah waxaynu ugu dhigan doonaa insha Allah kalaaska dhexdiisa, daawooyinka maqaarka lagu daaweeyo xanuunada ku dhaca oo dhan. haddii aad xiiseynayso waxaad la soo xiriiri doontaa nambarada hoose. aad iyo aad baa idin salaam. wixii su'aaleed haysaana waxaad nagula wadaagi doontaan comment button-ka ama halka hoose ee comment-ka. aad iyo aad baa idin salaamaya. ha moogaanina inaad la wadaagtaan dad fara badan si ciddii ay u baahannahay u aragto insha Allah. aad iyo aad baa idin salaamaya.